maha ammaanka ee dalka jamhuuriyadda jabuuti qaybtooda dabagalka iyo xog ururinta ayaa gacanta ku dhigay kooxo muuqaalo anshax xumaa ka duubaya haweenka iyo ku rabay inay ku rakaateeyaan waaxda dembi baarista ee ku shaqada leh dembiyada lagu galo cyber criminality-ga ee loo isticmaalo muuqaalo lagu faafiyo baraha bulshada ayaana si weyn uga howlgashay arrinkan waxayna dabagal ku sameeyeen fariimo iyo qoraallo rakaata ah oo la isdhaafsaday arrinkan oo ay u fudaydisay xogta diiwaanka kaydsan ee dalkan oo ka mid ah kuwa ugu casarsan Afrika. raggan ayaa lagu eedeeyay kufsi inay muuqaalo galmaa ka duubeen 7 haweena iyagoo ugu hanjabay inay muuqaalada soo dhigayaan baraha bulshada. waxda dabagalka iyo xog ururinta ayaa cadaysay in 2 ka mid ah gabdhahan ay yihiin hablo aan qaangaarin. dembi baarista ayaana dacwadan u gudbinaysa xeer ilaalinta si loo xaqiijiyo gal dacwadeedkan waxaana la filayaa inay xabsi dheer mutaystaan. Jabuuti ayaana lagu ogolayn muuqaalada anshax xumada ah ee la duubo waxaana dawladdu ay bilowday wacyigelin laga sii deynayo telefishinada iyo raadiyaha dalka. xagga Soomaaliya caadi noqotay in dambiilayaasha xorriyad ku maraan suuqyada iyagoo faafinaya muuqaalo anshax xumaa. booliska dalka Turkiga ayaa bilaabay howlgallo culus oo lagu beegsanayo Soomaalida iyo ajaanibta sharci la'aanta ku joogta magaalada Istanbul. Soomaalida oo inta badan habeenkii haweeya ayaa wajahaya xaaladaha adag. ciidamada ayaana la arkaya iyagoo gaafureegaya wadooyinka rakaabkina basaska kala degaya. tallaabadan oo loo aaneynayo la dagaalanka taariikhda kooxaha maafiyada oo farabaas ku haya Istanbul. Soomaalida sharci la'aanta ayaa lagu taliyay inay feejignaadaan muddada howlgalladu ay socdaan, dhaqdhaqaaq macna la'aantana yareeyaan. doorashooyinkii degmooyinka ee ka qabsoomay Puntland dhawaan ayaa dhaliyay rugla orodka tartan geediga doorashooyinka qof iyo cod oo ka qabsoomi kara Soomaaliya guud ahaan. qaabkii laamaha ammaanka Puntland u maareeyeen si xirfadaysan sugidda ammaanka doorashooyinka dhulbaaxadda intaas la eg leh oo isku mar xiriirinayeen si toos ah. saraakiisha laamaha ammaanka goobaha codaynta ayaa ka yaabisay daneeyayaasha Soomaaliya oo garowsaday inay suurtagal tahay haddii Soomaaliya hesho hoggaan howlkar la curin karo in dadka Soomaaliyeed degmo ilaa iyo gobol dooran karaan mas'uuliyiinta danahooda u adeegta. cadaadiska daneeyayaasha ayaa keenay in shirkii wada tashiga ay ka soo baxaan qodobo lagu daminayo xumadda doorashooyinka xor iyo xalaal oo ka dhaca gobolada Soomaaliya guud ahaan. dowladda dhexe ayaana 2 qodob isaga moostay daadka rabitaanka shacabka sida dalku inuu 2 xisbi oo kaliya yeesho in dalku yeesho hal komishin oo doorasho, taasoo in loo micneeyay in dowladda federaalka iyo maamulada gobolada madaxdoodu ay ka cabsi qabaan in shacabku ay doortaan dad haysta kalsoonida shacabka. xaalad kacsanaan ayaa ka jirta badda madow 2 cisho kadib markii uu dhammaaday heshiiskii dhoofinta qamadiga Ukraine. Ruushka ayaana ku dhawaaqay inuu aqoonsan doono cadow maraakiibta u socota dekedaha Ukraine waxyarun kadib markii Ruushku duqeeyay bakhaaradii lagu kaydinayay qamadiga meel ku dhow dekeda Odessa. Vladimir Putin ayaa shuruudo ku xiray in dib loo soo celiyo heshiiskii qamadiga Ukraine loogu dhoofin jiray caalamka uuna codsaday markii hore in xayiraadaha laga qaado bangiyada iyo wax soo saarka Ruushka. habeen hore ayay Mareykanku ku deeqeen 1.3 bilyan oo dollar oo la siiyay Ukraine. qamadiga Ukraine ayaa inta badan laga sameeyaa cunooyinka ama rootiga lagu cuno Afrika iyo wadamada Carabta waxaana laga cabsi qabaa sarakac ku yimaada inuu sababo cunto la'aan baahsan. rootiga iyo moofada oo la waayo ayaa halis ku ah Afrikaanka ayaana intooda badan lagu kari laayahay inay dhulkooda beertaan oo ay maalgashtaan. waxaa loogu yeeraa bukaankii Geneva waana bukaankii 6aad ee ka bogsooda cudurka AIDS-ka, laakiinse bukaankan ayaa kaga duwanaa bukaanadii hore waayo kuwii hore AIDS-ka waxa uu raacay kansarka dhiigga waxaana loo bedelay unugyada dhiigga ee lafdhabarta, laakiinse bukaankan ayaa dhuuxa lafdhabarta unugyada dhiigga sameeyay loo cusboonaysiiyay 5 sano ka hor. hadda baaritaanadii dhiigga ayaa cadeeyay in fayraska dhaliya HIV uu ka dhammaaday dhiiggiisa oo wax infection uusan qabin muddo 20 bil ah oo tijaabo lagu hayay. bukaanka Geneva ayaa go'aansaday inuusan shaacin magaciisa wuxuu sii hibeeyay in la shaaciyo xaaladiisa uu ku sifeeyay mucjiso. waxaa saarsan wada dheer inta daaweyntan lagu tijaabinayo bukaanada qaba cudurrada AIDS-ka ee dunida. 6 qof ee ka bogsootay inta badan guddigood waxay ku noolaayeen wadamada horumarsan xagga malaayiinta qof ee u jiifta cudurkan AIDS-ku ay ku nool yihiin wadamada saboolka sida Afrika, Aasiya iyo weliba Latin America. la soo gabagabeeyay howlgal dayuuradii ugu dambeysay ee 330 muhaajiriin oo Addis Ababa laga keenay waxaana Itoobiya laga soo qaaday 5,000 oo falaashaha Yuhuudda Itoobiya ku dhaqnaa muddo ku siman 3 sano ee ugu dambeysay. howlgalkan ayaa waxaa bilaabay 2020kii wasiirka isdhexgalka bulshada Nima Tamanoshata
oo qudhadeedu Itoobiya ka soo jeeda markii ay xukuumaddu isbedeshayna haddana waxaa dib u bilaabay 2022 yuhuudda fallaashaha Itoobiya ayaa laga keenay ayaa waxaa la dejiyey 18 xerooyin qaxooti oo ku fiirsan dalka Israa'iil. kaamamkan ayaa waxaa gacanta ku haya wasaaradda socdaalka isdhexgalka iyo hay'adda yuhuudnimada qaabilsan, waxaana hay'adahani ka caawiyeen qaxootigan cusub inay ku dhex milmaan bulshada afka Hebraayigna ay bartaan. waase Itoobiyaankani ka cawdaan in inta badan la faquuqo oo si weyn loo yaso noloshooduna si weyn uga hooseyso ta muwaadiniinta kale.